لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. magaalada Cadaado oo haatan xarun ah maamulka Galmudug ayaa maanta si weyn looga ciiday iyadoo dadweyne fara badan ay ku tukadeen salaada ciida fagaare ku yaala magaalada iyo qaar ka mid ah masaajidada. Maxamed Xaashi Cabdi madaxweyne ku-xigeenka Galmudug iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka ayaa dadweyne fara badan kula tukada salaada Ciidul Fidriga fagaare ku yaala magaalada kaas oo u dhow xarunta madaxtooyada. salaada ciida kadib ayaa dadweynaha waxaa khudbad u jeediyay madaxweyne ku-xigeenka isagoona hambalyo u diray isla markaasina la dardaarmay. magaaladan Cadaado oo ku noolnahay sidii sanadkii hore oo kale marnuu waxay noqon doontaa magaalo biisi ah oo dad badan oo Soomaaliyeed ay imaanayaan ilaa iyo maaragtay 36 sanatar 44 qof maaragtay lagu soo doorto dadkii dooranayay iyo waxa kale oo imaan doona ilaa iyo dhammaan dadkii raadinaya xilalkaas oo dhan iyo dadkii la socda taageerayaasha oo ahaa waxaas oo dhan aad iyo aad u mahadsantihiin. maanta waa maalin ciida waxaan idinku hambalyeynaya ciida farxadda ciida runtii dhammaan ummadda muslimiinta meel walba joogto gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto gaar ahaan reer Galmudug gaar ahaan reer Cadaado aad iyo aad u mahadsantihiin. magaalada Cadaado ayaa waxaa maanta si weyn looga dareemayay munaasabadda ciida iyadoona wadooyinka waaweyn lagu arkayay dadweyne fara badan kuwaasoo damaashaadaya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلمين تمال كستي شوغان مقعيقو وعامر محمود عبدي oo jooga magaalada Cadaado si wanaagsan ayaa looga wada iiday oo aan kala har lahayn oo la isku waafaqsan yahay muslimiinta meel kasta joogaan waxaan leenahay ciid wanaagsan. waa Cabdulqaadir Shaamac Xirsi kana tirsan dowlad goboleedka Galmudug. ciid wanaagsan intii aan iidayay ciidii igu tirada badneed igu dadka badneed igu qiimaha badneed weeye. محمد محمود وادن تيفيق عالمي يونيفرسال عدادو.